Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo channelkeena Dhola Case oo MW oo idin leh dhammaan ardayda Soomaaliyeed aad baad u salaaman tihiin meel kastoo aad ka joogtaan daafaha caalamkaba. Sidii aydu nooga barateen waxa aanu mar walba u taaganahay in aanu idinka haqabtirno caqabadaha idinka hortaagan sidii aydu u heli lahaydeen full scholarship amba international scholarship waxbarasho free ah oo caalami ah. Maantana waxaanu halkan isku dayi doonaa inaanu idinku soo gudbino habka loo qoro waraaqada la yidhaahdo statement of purpose, taas oo ah waraaqad badanka la iska weydiiyo marka aad ku guda jirtid application-ka xareyntiisa scholarship-ka. Waraaqadaas oo ay arday badan naga soo codsatay in aanu wax yar ka taataabano intii karaankayga ah. Haddaba waxaynu ku bilaabi doonaa summary yar ayaynu idinka soo sameynay. Isla waraaqadaas waxay tahay iyo habka loo qorayo iyo waxyaabaha iska ilaalinaysid iyo dhammaan meelahaas ayaynu wax ka taataaban doonaa. Waxaynu ku bilaabi doonaa waa maxay horta waraaqdani statement of purpose oo loo soo gaabiyo SOP. Statement of purpose amba waraaqadani waxa weeyaan wuxuu ku is an essay that is one of the most important aspects of your application because it tells the admission committee who are you, why you are applying, why you are a good candidate, or what you want to do in the future. It's sometimes called a SOP letter. Wuxuu ku yiri waraaqadani horta waa essay. Waraaqadan waa qoraal oo story ah amba sheeko ah oo aad kaga sheekeynayso dhinacyo badan oo khuseeya application-kaaga. Tusaale ahaan oo kale waxaad u sheegaysaa buu ku yiri admission committee guddida kala xulaysa amba u xilsaaran scholarship-kan xulistiisa. Waxaad u sheegaysaa who are you, cidda aad tahay adigu kow. Sidoo kale why you are applying, sababtee ayaad u xareynaysaa scholarship-kan. Why you are a good candidate, sababta aad u noqotay amba aad u tahay qofka ugu wanaagsan amba qof ugu wanaagsan in uu xareeyo scholarship-kan. And what you want to do in the future, sidoo kale mustaqbalkaaga maxaa kuu qorshaysan ina aad qabatid. Marka waxaad halkan kaga sheekeynaysaa waa qorshahaaga mustaqbal ay sidoo kale ku sheegaysaa. It's sometimes called waxaa la yidhaahdaa SOP letter baa la yidhaahdaa ayaa loo soo gaabiyaa SOP letter. Some quick tips. Halkanna waxaanu idinku soo gudbin doonaa talooyin yaryar oo aad idinku muhiima si aad waraaqdan sida ugu wanaagsan aad ugu qortaan. Haddaba talooyinkan ayaan ugu horeysa ku bilaabaynaa. Your statement of purpose should not have any spelling or grammatical errors. Waraaqdan statement of purpose-ka marka aad ku guda jirtid qoritaankeeda waa in aad iska ilaalisaa qoraalkeeda dhanka spelling-ka inuu khalad kaaga yimaado. Sidoo kale waa in iska ilaalisaa dhanka grammar-ka inuu qoraalkaaga khalad kaaga yimaado. Sidoo kale use strong, clear and concise writing. Wuxuu ku yiri waa inaad waraaqdaada statement of purpose-ka information buuxa waa inaad ku xustaa, laakiin waa inaanad information-ka oo dhammaystirin aanad ku xusine aad ku soo koobtaa kelmado yaryar oo gaagaaban oo muhiima oo soo jiita guddidan kala xulaysa scholarship-ka. Sidoo kale waa inay noqotaa mid nuxur wanaagsan oo muhiima xambaarsan waraaqadaasi. Avoid cliches and repetitive language. Wuxuu ku yiri waa in iska ilaalisaa ood ka fogaataa qoraalada amba kelmadaha macnahooda dhabta ah luminaya iyo sidoo kale kelmadaha markaad qoraalka qoraysid soo noqnoqda. Tusaale ahaan oo kale cliches wuxuu uga jeedaa waa kelmadaha macnahooda dhabta ah
uu qarsoon yahay. tusaale ahaan kelmad English ah ayaa tiraahdaa waa inaanad bay dadka ku dhex ridin hal boqos oo taas oo macnaheeda dhabta ah uu qarsoon yahay oo looga jeedo waa inaanad rajooyinkaaga aanad hal shay kusoo koobin. marka waa tusaale ahaan waxay la mid tahay inaga xaggeena hal xidhaalayaasha ay la mid tahay. marka tan kalena keep a positive and confident tone waa in waraaqadaada qoraalkeeda ay ka muuqataa kalsooni badan oo dheeraada, sidoo kale qoraal uu noqdaa mid positive ah. The general format of a statement of purpose, habka haddaba loo qorayo formatka uu noqonayo qaabka qoritaanka waraaqadan ay noqonayso ayaynu wax yar ka taataabaneynaa. wuxuu ku yidhi to alif point times new roman font. horta qoraalka markaad qorayso waraaqdan xuruuftu waxay noqonayaan times new roman font ayay noqonayaan qoraalkeeda. sidoo kale 12 size-kana 12 qoraalku 1 inch book margins on all sides. wuxuu ku yidhi dhinacyada waraaqda markaad ka eegayso qoraalka waa in ay noqdaan 1 inch. sidoo kale spacingka qoraalka waa in ay u dhexeeya 1.5 ay ku noqdaan. Do I need book to put my name on my statement of purpose? miyaan u baahanahay in aan waraaqda ku xuso magacayga? marka waraaqada statement of purpose wuxuu ku yidhi in general guud ahaan no, you do not need to put your name on your sub. wuxuu ku yidhi kuma xusaysid magacaaga waraaqda. the reason sababta oo ah wuxuu ku yidhi applicationadan aad gudbinaysid documentka kale aad gudbinaysid ayaa magacaagii haatan la socdaaba uu ku xusan yahay. marka adigu muhiim saasa maaha inaad ku xustid. but if the requirement for your program says that you should include your name, then you should follow the directions. wuxuu ku yidhi haddii programkan aad codsanaysaa uu kugu khasbayo in aad ku xustid magacaaga oo inaad ku xustaa, laakiin waajib maaha in aad magaca ku xustid inaanad ku xusin waraaqdaas magaca. waanad ku xusi kartaa kumana xusi kartid. how long is a statement of purpose supposed to be? haddaba imse waraaqadood bay noqon kartaa waraaqadan statement of purpose qoritaanka laga qoray qoraal ahaan? waxay noqon kartaa buu ku yidhi 1 page, hal page. haddii aad u baahatid inaad wax ku darsatidna half page oo keliya ayaa raacaya. marka 1 page iyo half page ayaa maximumka inta ugu badan ay noqon karta. wixii ka badan lama ogola. statement of purpose format, what do I write? haddaba waraaqadan habka loo qoray iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay waraaqadan ayaynu ka sheekeynaynaa. waraaqadan statement of purpose waxa ay ka kooban tahay 5 paragraph amba 5 qaybood oo qoraal ay ka kooban tahay. haddaba waxaynu ka bilaabaynaa paragraphka koobaad. paragraphka koobaad wuxuu ka hadlayaa who are you, kuma ayaa tahay, and what do you want to do, maxaad doonaysaa inaad qabatid. marka waxa weeyaan paragraphkan wuxuu ka sheekeynaya you should introduce yourself by briefly giving your background and stating your current career goal or objective. paragraphka koobaad wax keliya aad ku xusaysaa waa in aad ka sheekaysaa, sidoo kale aad ku xustaa backgroundkaagii nololeed iyo kii waxbarasho. sidoo kale waa inaad ku xustaa ood halkan kaga sheekaysaa qaybtan paragraphkan objectiveka amba danta aad ka leedahay scholarshipkan aad apply garaysanayso. kaasi waa kaa paragraphka koobaad. for example buu ku yidhi consider this statement from the description of the Harvard MIT Health Science and Technology program. HET students to learn to carry their engineering certificate expertise from the laboratory band. halka waxa weeye waa tusaale arday xaraysanaya qeybta sayniska caafimaadka sayniska iyo teknolojiyadda ayuu tusaale ahaan marka waa arday kaga sheekeynaya halkan backgroundkiisii, sidoo kale objectiveka iyo danta uu leeyahay weeyaan ayuu halkan kaga sheekeynaya. waa tusaale la socda paragraphka koobaad. qaybtan labaad paragraphkan labaad the second paragraph wuxuu ku yidhi waxaad ka sheekeynaysaa why do you want to do it, maxaad sababta aad u doonaysid inaad u qabatid shaygan aad halka hore kusoo xustay.
marka wuxuu ku yidhi second paragraphkan labaad should explain how you came to be interested in your specific area of study. waa in aad halkan kaga sheekaysaa sababta aad u xiisaysay in aad u xareysatid programkan. sidoo kale waa inaad halkan kaga sheekaysaa sababta aad u dooratay amba aad u xiiseynayso in aad qaybtan soo baratid aad dooratay. marka halkan waxaad kaga sheekay wuxuu ku yidhi tusaale ahaan know that you have made it clear that you have a background and goal related to the program. Explain your interest in it. Your statement of purpose tells us admission is officers why you are applying and first. tusaale ahaan oo kale do not give really general reasons like wuxuu ku yidhi halkan qaybtan marka aad qoraysa paragraphka labaad waa inaanad ku xusin sababo guud. tusaale ahaan oo kale I like helping people. waxaan jecelahay inaan dadka caawiyo. taasi waa sabab guud, laakiin waa inaad deeply waa inaad hoos ugu dhaadhacdaa. waa kan halkan inoogu xuseeya wuxuu ku yidhi general reasons does not help admission officers understand you as an individual. This is because so many people give these reasons. wuxuu ku yidhi guddigan scholarship committeegu ma xiiseynayaan sababaha gaagaaban ee generalka. You probably do like helping people. That's great. No, look deeper. Why do you like? wuxuu ku yidhi waa inaad hoos ugu sii dhaadhacdaa marka aad tiri I like helping people. waa inaad hoos why do you like waa inaad kasii jawaabtaa waa inaad ka jawaabtaa su-aalahan. why do you like helping people? maxaad u jeceshahay inaad dadka caawisid? did you come to like helping people? sidee ayay u timid in aad dadka caawiso? why do you want to learn in this specific program to help people? sababta kugu kaliftay inaad soo baratid programka si aad dadka ugu caawisid waa maxay? marka intaasoo shay ayaad kaga sheekeynaysaa halkan qaybtan paragraphkan, laakiin wuxuu aad kaala dardaarmay inaanad sababo yaro oo guud oo gaagaaban inaanad bixin. tusaale ahaan oo kale I like helping people. marka paragraphka labaad waxa weeyaan wuxuunbaad kaga sheekeynaysaa un sababta aad u dooratay fiilkan aad xareynayso eed apply garaynayso sababta aad u dooratay ayaad halkan kaga sheekeynaysaa. paragraphka saddexaad why are you the right candidate for the program? sababtee ayaad u tahay qofka xareysanaya qof u wanaagsan oo ku habboon programkan aad xareysanayso. marka paragraphkani wuxuu isugu jiraa laba paragraph, waa kii saddexaad iyo kii afraad. marka ka saddexaad wuxuu ku yidhi briefly describe any experience you may already have in your area of study. Think of any jobs, internships and projects and so on that you have done. Look back to the background career goal from the first paragraph. wuxuu ku yidhi waa in aad halkan kaga sheekaysaa khibrado aad u leedahay fiilkan aad xareysanayso. hadday tahay shaqooyin aad kaga soo shaqaysay fiilkan ood kasoo faa'iiday, hadday noqoto projectyo aad fulisay waqtigii jaamacadaada aad khibrad ka qaadatay, iyo internships iyo shaqooyin internships ood aad khibradda kasoo faa'iiday. halkan markaa waxaad kaga sheekeynaysaa khibrado aad u leedahay fiilkan aad apply garaysanayso ayaad kaga sheekeynaysaa. ka afraad paragraphka afraad where you can describe in other experience you had. marka paragraphkan afraad iyo ka saddexaad badanka waa laba wada socda. wuxuunbuu ku leeyahin halkana experience dheeraad ah, khibrado dheeraad ah ood u leedahay fiilkan aad xareysanayso halkan ku xus. marka kan iyo ka hore badanka way wada socdaan marka la qorayo waraaqada statement of purpose-ka oo badanka waa la israaciyo. waxaa laga dhigaa khibradaha aad u leedahay ood hore ugu soo lahayd fiilkan aad xareysanayso ayuunbaad kusoo koobaysaa un, waxba asii kala qaadin.
qaybtan baragraafkan ugu dambeeya wuxuu ku leeyahay waxaad ku xustaa ood kaga sheekaysaa balaankaaga amba qorshahaaga mustaqbaleed ee aad ka leedahay marka aad soo dhamaysid fiilkan aad xaraysatay. markaa wuxuu ku yidhi markaad eegtid first baragraafkeenii koowaad ee aynu ku xusaynay who are you, qof ma ayaa tahay, sidoo kale what do you want to do, maxaad doonaysaa inaad qabatid. marka what do you want to do ayaa ah short term goal. marka waxa weeyaan waa hadafkaagii dhowaa weeyaan kaasi. hadafkaaga dhow waxa weeyaan waa danta aad ka leedahay scholarshipkan waxaan u xaraystay inaan soo barto qaybta inaan saa ugu adeego. marka halkan waxaad ku xusaysaa, kaas waa baragraafkii koowaad baynu soo yar dulmarnay, laakiin baragraafkan ugu dambeeya waxaad kaga sheekeynaysaa, wuxuu ku yidhi waa long blankaaga future, waa qorshahaaga mustaqbaleed ee fog. tusaale ahaan oo kale wuxuu ku yidhi your next step may be to become a manager in your field. wuxuu ku yidhi tallaabada labaad ee aad qaadayso marka aad jaamacadan aad dhamaysaa waxa weeye waa manager inaad noqdo, fiilkan aad soo bartay inaad ka noqdo. kaasi waa short termkiyo waxa weye waa hadafkaagii dhowaa oo waa baragraafkaaga koowaad ead kusoo xusaysaa. haddaba baragraafkan laakiin ugu dambeeya waxa weeye but your long term goal may be to be a director or CEO, whatever the applicable title for your field. baragraafkii koowaad iyo kan ugu dambeeya waxay ku kala duwan yihiin. waynagii nidhi kii koowaad waxaad kaga hadlaysaa hadafkaaga mustaqbaleed ee aad ka leedahay fiilkaagan waqtigaad dhamaysato. marka tusaale ahaan oo kale wuxuu soo qaatay waa in aan noqdo manager fiilkaygan la xidhiidha. kaasi waxa weeye waa baragraafka koowaad baad ku xusaysaa. laakiin wuxuu ku yidhi baragraafkan ugu dambeeya waxaad ku xusaysaa qorshahaaga mustaqbaleed ee fog. waa tusaale ahaan oo kale wuxuu ku yidhi to be a director or CEO, waa in aan ka noqdo CEO, madaxa ugu sarreeya ee shirkad. haddii examplekaas sidaas weeyaan. waxa weeyaan haddaba waxaa jirta haddii uu noqday mustaqbalkaagii dhowaa ee aad ku xusaysay amba waxaad qabanaysid marka aad soo dhamaysid fiilkan aad xaraysatay uu noqday midaad ku xusaysid first baragraafka, kaasoo ah amba noqonaya inaad fiilka markaad aad soo baratid aad ku noqotid manager. waa maxay next stepkaaga amba qorshahaaga labaad ee markaad manager noqotid qorshahaaga labaad eed qaadaysaa waa maxay? waa inaad managernimada ka dalaca oo noqda CEO shirkadda manager ka noqday soo maa. markaa kaasi waxa weeye waa long termkii amba waxa weeye waa qorshihii mustaqbaleed halkan ku xusaystay. sideed haddaba u qori kartaa formatkan amba aad u dhammaystiri kartaa waraaqdan si sax ah? wuxuu ku yidhi now that you have a basic idea of, halkan imika waxaad ka haysataa buu yidhi idea amba fikrad guud baad ka haysataa habka loo qoro waraaqdan. kadibna waxaad isku dayaysaa inaad bilowdo haddii aad ready tahay, diyaar tahay. haddii aanad diyaar ahayna waxaad samaynaysaa waraaqado sample ah oo hore loo qoray oo statement of purpose. haddaad undergraduate, haddaad master tahay, haddaad PhD tahayba ayaad soo daydaysaa. kadibna waxaad isku eegaysaa waraaqdaas iyo baragraafyadan aynu halkan kusoo xusnay siday isku leeyihiin. kadibna markaad indhaysid ayaad as a reference waxaad u qaadanaysaa tixraac ahaan. kadibna waxaad isku diyaarinaysaa inaad qortid waraaqdii. slidekan ugu dambeeya waxaynu halkan kusoo bandhignay samples u kala baxaya bachelor degrees oo waraaqada statement of purpose 2 ah iyo master program oo 2 ah.
marka double click ayaad ku dhufanaysaa markaad doonaysid inaad download garaysatid kaad doonaysid. kaasina waxa uu ahaa habka loo qoro waraaqada statement of purpose-ka intuu ilaahay naga garansiiyey waanu idin soo bandhignay ardayda Soomaaliyeed. waxaanu idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba aad baanu idin salaamaynaa. nagu xidhnaada.